السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة وايد السلام يا ميل إيواد جوكتان وأنا كفر أحسن عرمتي عشدي وناكسنيد قروح دبضنيد أي نعاود سبوني ميرونتي أد بانو كفر أحسن وأنا جعلها إن أنك جواب عد سجيني أها إني نسوسون نقنو و رنتي أينو بعد العشاء ما دام إنه شكله كود لما ينكرين قبتي إنه ذي جوجني مخايدي وبقرن كره أدبان ugu faraxsanahay xiisaha ay idin hayso runtii qaybta dambe oo aan jeclahay bal inaan wax idin ka taabto laakiin qaybtan waxay ku soo laysnaan doontaa dhaqanka iyo guurka maadaama dhalinyaradu u badan tahay dadaan weli guursanin oo maaragtay marxaladii calafdoonka ku jira waxaan hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa farxad gelinaya weliba inaynu caaw inagoo live ah oo inay isu jeedna meelna aan wada joogin muqdisho london iyo minneapolis ay dhacdo inaynu inagoo wada casheynayna inuu live projector isu aragnaa wada hadalnaa weliba aan kalluunkii dalka khudradii canuunigii aan jeclaa oo waa macnaheedu xusuus runtii maaragtay aad qaali ah 15 May 2001 bay ahayd markii ugu dambeysay muqdisho aad baan u rajeynaa runtii waqti dheer baa ka soo wareegay dareen farxad leh dhalinyaro waxaad idina aad aragteen dabcan dalkiina bilicdiisa iyo wanaagiisa iyo maaragtay daris wadanka leeno ka doonayo inaynu dib u dhisano wadanka leeno ka doonayo inaynu nolol wanaagsan u sameeyno wadanka leena ka doonayo inaan midabta koorka iyo qabaliyada iyo xuduudaha qabaliga ka qaadno wata haddaan soo noqdo arrimihii ay nolosha meertada nolosha jacaylka kalgacalka aad waliba iga codsateen waxaan jeclahay inaan ifafaalaha aan soo qaadanayo uu noqdo ay ifafaal walow anuu aanan the musician ahayn oo aan nabcahay in lagu gargaraaco laakiin markii xurufta la soo qaato macnay ku fadhidaa weyn runtii ana jeclahay inaynu inagoo diinteena nolosheena caqiidadeena principlekeena ilaashanayna diiniga ah inaynu habkii meertooyinkii kale nolosha quruxda badnaa inaynu wax ka soo qaadano waxa aad macaan badan oo wanaagsan waxaan soo qaadanaynaa Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo runtii ah ninaan aad iyo aad maaragtay u jeclahay iyo jacayl dhiig ma lagu qoray waan jeclahay inaad fahamtaan dabcan isku daya inaad qortaan dhageysataan raadisaan xurufta aad ka qaadataan macnaha ku fadhiya ku dhex jira oo ifafaalaha bixinaya especially dhalinyaradiina aan halka ku barbaaray aan wadankii nasiib u yeelanin inay arkaan marka waxaan maleynayaa inaan guda geli doono oo dhagihii inay idin furan yihiin waa idin arkaa runtii inkastoo dee screenku badan yahay oo dadka qaybtooda aad moodid inay mugdi ku jiraan haddana still I'm very happy inaad weliba live xilligaas muqdisho dhalinyaradu qaybtooda ay ka dhageysanayso waxay ka tahay iyadana maaragtay casriyaday ka mid tahay ninbaas laftigiisu waa u mahad celinaynaa oo shaqo wanaagsan buu qabtay softwarekaas ninbaas marka great qolihina kale dee internet fiber waa haysataan oo idinku you don't need maaragtay inaad walwalkaas idinahay laakiin aniga muqdisho caawa xiisa gaar ay gelinaysaa aan u guda galo marka dhalinyaro Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi fafaalaha uu bixinayo laba qof oo aad taxadigiis kala baxay maaragtay jeclaaday nololeed waayay isla soo maray haddana alfan waayay iyagoo doonaya waayuhu uu ku dhamaaday ayay noqotay marka iyadayna tusaale ka soo qaadanayna waan jeclahay inaan maaragtay aan fafaalaheeda soo qaadano wuxuu yiri marka jacayl dhiig ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkii ma u dheega feedhaa dhabanada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay xinjiraan isdhalan rugin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaa weli dhiil ma lagu shubay laba mays dhansiiyeen sida dhayda xoolaa dhegdheg ma u wadaageen weli laba isdhaarsaday baryo dhac nasiib iyo
dhulku kala cilaalaa subax dharabka kowsaday dhididuna cidoon tahay cidla aan dhir mooyee wax dhaqaaqayaa jirin jabaq ma isku dhaadeen cidla aan dhir mooyee wax dhaqaaqayaa jirin jabaq ma isku dhaadeen kulankii dhabta ahaa riyo dhiifikeentiya dhalanteed ma moodeen sida ay dhadhabayaan dhowr jeer ma saladheen afdhabaandhow jamashada maka dhoofay hadalkii bal dhaqaaqna kay tahay dhihidii ma waayeen maka dhabaqday xaajadu ilmo dhalatay xiisuu sida dhibic mahiigaan dhihidii ma waayeen maka dhabaqday xaajadu ilmo dhalatay xiisuu sida dhibic mahiigaan maka qubatay dhaayaa maku qoyay dharkoodii naxariis ma dhidideen qosol baan halkaa ka arkaa iyo dad yaaban iyadoon dhanqalankii dheeldheeli mooyee dhegna aanay kaga jirin kolba elay dhexroorkii dhumucdii ka maqan tahay dhitinaya keligii kadib 10 dharaarood carabkii dhanxanagii dhirin dhirid ma ku heleen laba guul u dhalato isu dhiganta weeye dabadeed dhabeenshii hanadkii ku dheeraa dhudi maysbariisheen dhubadqaadka sheekada qofba dhagarta caashiqa wixii dhaaxa soo maray ma dhex galay kolkiisii ma akhriyay dhambaalkii warka maysu dhiibeen kalgacayl dhita haadhamac iyo dabhuriyeen dhuxul iyo ladh soo kacay hadba dhoon ma buuxsheen kolba dhacan ma jiideen dhacdadiiyo ujeedada qofba dhaadashada guud qofka kale dhankiisii inaan looga soo dhicin ma ku dhaabadeeyeen sanad ma is dhegaysteen ma dhalaalay waagii dhag ma tiri cadceedii iyagoon ka dheeraan dhaqankii xishoodkii dhaymana u jeel qaba iyagoo dhexdoodii dhulku suxul bannaan yahay dhibta ma isla taageen wax intaa kasii dhow ma ku dhiiran waayeen dhayilaysu taabtiyo dhalinyaro habkeedii ma ka dhaga adeegeen dhagadhadhansiga miliilica isha mayska dhowreen dhabaday istaageen qofba dhaabadiisii sarajoog dhankiisii kun habeen ma dherana laysu taabtiyo dhalinyaro habkeedii baa layiri maaragtay iyadoo diintii habkii nolosha caqli la dhowrayo hatana noloshii iyo in maaragtay laysu waraysto oo qofkii ma fahmaysaa marka laysu taabtiyo dhalinyaro habkeedii waan waxyaabaha la doonayo inaynu wacyiga bulshada halkaa ka dhisno okay dhudhumada aboorkii dhulka hoose kaga baxay dhilashada jidhkoodii ma dhambalay sartii guud ma dhameeyey hilibkii xididada ma dhaawacay ma u dhaafay seedaa lafta hoose ma u dhacay dhiiluu ku geliyaa ama waad dhaliishaa dhagartii wadkaagee dhimashada kal iyo laab ma ku soo dhaweeyeen dhoolaa ma ka qosleen ubax dheelka subaxdii naxariis ku dhaashtoo afka dhiin casmariyo dhidigiyo labkiisii labadhooda isugu maran ma isdhaafsadeen oo dhaxal maysu siiyeen dhuuni kowlka caashiqa maysu sii dhidhamiyeen ereygii dhinaa hadal dhigta maysu saareen dhafandhaaf aboorkii ma dhufsaday camuudii ma u qaatay dhoobada dhadhabkiiyo kakabadii labadaba ma dhalan rogay dhismo kale ma soo baxay ma ka dhigay wax yaabliyo dudun dherar ku caanoo dhumuc iyo lixaad weyn dhalandhoolka maantii dadku dhacarta jiilaal ma hadhsaday dharaartii ma ka dheelmay galabtii iyadoon la dhaadayn sheekada dhabteeda iyo dhabarweynta hoos kale in dhexdeeda laba ruux runta kaga dhursugayaan iyadana waa weyn kale iyadoon la dhaadayn sheekada dhabteeda iyo dhabarweynta hoos kale in dhexdeeda laba ruux runta kaga dhursugayaan haddaan laysu dhimanayn nafta laysu dhiibeen ama dhaxal tisqaadiyo dhismo aqal la taagiyo ubad iyo dhaqaaliyo dhaqan reer la kala sugin dhunkashiyo ujeedadu tahay dhaayo guudkood waabay la dhabaqsado dhereg iyo markaas qurac ama sida dhurwaayada hilbo gabar dhigroonoo higlo loogu dhuuntoo dhaqso loogu kala baxo ninba waxaa dhabacashada dabankiisa ugu dhaca dhidir iyo xabaashii sharaf lagu dhabcaaliyo dhowrsooni laga tegay dhalanteedka beenta ah bulshada u dhaawacan hab jacayl u dhaqangalo ma hollado kan ugu dheer maamuusna ugu dhow mise weli waxbaa dhiman halkaa waxaa laleeyahay hab jacayl u dhaqangalo ma hollado kan ugu dheer maamuusna ugu dhow sharaf lagu dhabcaaliyo dhowrsooni laga tegay dhalanteedka beenta ah bulshada in bulshadii dhaqan xumooyinka noocaas oo kaleeta ah laga dhowro oo la sameeyo la create gareeyo bulsho sharaf leh jiilka kale wanaag uu ka dhaxlo la abuuro la maaragtay laga baxo dhaqankan xun ee burburka laga dhaxlay waayahan magaalooyinkeena iyo gobolladeena iyo dalkeena ku fiday marka waa wacyi guud oo u baahan in dhinac walba bulshadeena aynu ka dhisno arrintaas waxaan rajeynayaa mirahaas baaxadda leh ee ku dhex jira xuruftan
aynu soo sheegnay inaynu dhalinyaro dib u eegto oo ay meelaha fara badan oo runtii dhaqanka taabanaya weliba targetka la saaro maadaama waxay abuureysaan waa qoys waa bulsho waa abuuris bulsho waa qayb bulshadii ka mid ah bulshadu waa shakhsiyaad la isu geeyey waxyaabahaas oo dhani marka waxa ay sugayaan waa inaga waxaa laynu ka baahan yahay waxyaaba fara badan runtii oo ay ka mid tahay sidaynu dhaqankeena shakhsiga ah tacliinteena marka hore u hagaajin lahayn oo qofku markuu haduusan isagu hagaagsanayn wax ma hagaajin karo taawata markaynu teena ka gudubno habkii dhaqanka guurka iyo nolosha lamaanaha siday isu dooran lahaayeen inay noqoto si diin ku base garaysan oo dhaqan ku base garaysan oo aan fawaaxishka faraha badan oo maanta dhacaya waxaad arkaysaa walow ay bannaan tahay haddana maxaa la yidhaahdaa gabar aan fahmaynin hooyada aysan isku luqad ahayn o isku dhalasho ahayn oo aan isfahmayno kala jinsiyada inaynu soo guursano wiil in la soo guursado isku qofku hadduu muslim yahay dabcan yes laakiin at the same time haddana iyadoo la heli karo qof soomaali ah oo dhaqankii culturekii ehelkii qaraabadii raximkii maaragtay baahi keenaysa waxaad moodaa xoogaa iyada laftigeedu inay ka fiirsasho la-aan inay halkaa ku yara jirto marka iyadan horta bal halkaa in laga eego taasu waa dhinacii guurka iyo nolosha midabta koorka iyo xuduudaha layna dhex dhigay hadda caawo kale dad intaa la eg classmates neighbors deris ahaa isku galaas ahaa asxaab ahaa ciyaal xaafa oo dareenkoodu iyo kalgacalkoodu iyo isu keenayo oo isjecel oo walaalnimo isu doonaya oo caruurnimadoodii saaxiibo soo ahaa deris soo ahaa waxaa la dhex dhigay xuduudo qabyaaladeed iyo xaafado qabaa'il ay ka taliyaan iyo maamul goboleedyo aan loo baahnayn dabcan dadkii qaadi lahaa waa inaga iyo dhalinyarada dabcan programmadeena daawan doonta ama ina kusoo biiri doonta iyaguna classmates leh xaafado kala duwan deganaa gobollo kala duwan deganaa inay unitygoodii iyo walaalnimadoodii soo ceshtaan wataa waxyaabaha la yaabka leh oo aan rabno inaynu aasno oo runtii aan jeclahay arrintaas weliba idinka inaad tallaabada ugu horreysa qaadaan waxa weeye waxaa laynoo dhiibay oday dhaqameedyo waxaa la yidhi nabadoon ugaas garaad malaaq hebel you name it ayaa u taliya meegaarka xaafadda inagu dabcan dee waxaynu nahay beel soomaaliyeed oo beesha soomaaliyeed baa inaga dabcan layna yidhaahdaa laakiin iyagu waa qabaa'il reer hebel tom and jerry iscayrsanayo oo reer hebel baa xagga la siiyey reer hebel wasiir baa la siiyey hebel ha loo dhiibo oo aan caqli iyo base wax lagu base gareeyay aan la garanayn oo uu keenay oday dhaqameed aqoontiisa aan la garanaynin heerkay gaarsiisan tahay mid diineed iyo mid maadiyaba haddana markii la dooranayay lagu caano shubay qaybtood waad ka naxaysaan runtii caanaha dusha lagaga shubaa oo aanay garan karin war caanaha iga daaya caanaha igu shubinina waa lagu caano shubay waad maqlaysaan markaa maalintaa caanaha lagu shubay wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ayaa wiil ama gabar ay dhaleen oo cunug yar ah ayaa laga yaabaa inaanay caano ay siiyaan aanay u haynin maalinta kaa dushiisa caanaha lagu shubayo malaha axdi u qoran oo uu reerka qabaa'ilkaas uu sheeganayo inuu madaxda u yahay ama lagu sheegayo inuu madaxda u yahay uu ku maamulo male caqligiisu ku socdaa kitaab diini ah ma raacayo oo kitaab qur-aan uu ku hogaamiye ma jiro way jiraan shakhsiyaad fiican oo iyagu leadershipkooda iyo shakhsiyadooda u wanaagsan laakiin de inay sheegtaan oo ay maaragtay inay section bulshada ka mid ah ay hogaamiyeyaal u yihiin macnihii way iskoobeen meel bay isku maaragtay marka inaynu khaanadahaas ay iyagu isgeliyeen inagu inaynu ka baxno wajacalnaa shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafu yes waxaynu ka tirsanahay shucuubta africa qabaa'ilkeenana ama qabiilkeena ama beesheenana waa beesha soomaaliyeed wax ka hooseeyaa ma lihin regardless of gobolkeenu ku noolnahay haddaynu isku afkaarnahay oo isku meel maaragtay hadafkeenu yahay si loo bedelo marka failurkii our father generation ama dibadhicii jiilkii aabayaasheen waayo haddaynan inagu legacy iyo sharci iyo nidaam iyo hab nololeed la iman inagoo diinteeni iyo caqiidadeeni iyo principalkeeni wadana isla markaasna
waxaan isdilaya iyo maaragtay diin iska saaradahan kala duwan ee ka imanaya dhinacyada kala duwan ee soomaalida laftigoodu ay ka digtoon oo runtii u baahan in cilmigeennana la siyaadiyo wadaniyadeena iyo dalkeena iyo diinteena iyo umadnimadeena iyo sharafkeenana aynu ilaashano. kuwa hadda dowladda ciidamay ka tirsan yihiin laleeyahay oo meydka ku tumanaya oo meydka ku dul taagan ee aan ixtiraamaynin war qofkani waa dhintay mas-uuliyaddii way ka dhacday aan ixtiraamaynin. waxyaabahaasoo dhan waxay hoos imanayaan himilo la-aanta dadka aynu maaragtay ehelka u noqono nasiibku ehelka inoo ka dhigay inaynu ehel u noqono laakiin aynan isku aragtida iyo isku himilada iyo isku fahamka ahayn. marka waxaan rajaynaynaa iyadoo nabadgelyo ah walaalnimo wax loogu sheego hadda kaas lagu sheegayo cabdiraxmaan faroole oo isagu dabcan aad moodid inuu sidii cowboygii maraykanka oo kale u dhaqmayo isaga laftigiisa bal in haddii wax ka agdhow linkiyadeena dabcan aad la hadli kartaan in runta loo sheego wiilashiisa yaryar runta loo sheego la yiraahdo warheede nin waaraya waa awood iyo maamulku waaraya ma jiro maalinba nin bay baashu hoostaal ayahiina dambe 50 sano soo socda 20 sano soo socda idinkoo gidaar fadhiya inuu nin ama wiil aad aabihiis maanta disheen ama aad dhibaato u geysateen inuu maxaa la yiraahdaa halgaad idinku toogto ha kalifinina oo idina aad maalin daran si xeel la u dhimataan maantana qof kale aad si xeel u dishaan in la wada noolaado dadku wanaag ku wada noolaado nabad lagu noolaado oo inagu siiba asxaabta gobolka Shabeellaha Dhexe oo kale anigu Jowhar baan ku dhashay dabcan xamarna waan ku barbaaray yaraanteedii iska daa Soomaaliya Eritrean aan muslim ahayn oo dawladdu ay magangelyo siisay baan gobolka nagula noolaa inala barbaaray iskuulaadka inala tegay iyagoo afkii bartay la tixgeliyay la ixtiraam ilaa ay noqotay markii dambe inay soo muslimaan oo ay maanta iyagoo muslimna Jowhar inala degan yihiin iyo magaalooyinka kaleeto waxa laynoo ka baahan marka aqliyadii aynu ku hanan lahayn dadka for example hadda dhalinyarada Mareykanka joogta kuweenan halka jooga maalin walba waxba la soo islaaminaya ay diinta qaadanaya asxaabteena kuwa in la shaqeynaya juhdi weyn baa socda juhdiga iyo dadaalka socda wuxuu u baahan yahay himilo wanaagsan in dadkii wanaag la tuso kuwa soo islaamaya iyo ilaahay diintiisa nuurkiisa siinayo dabcan dadaal iyo juhdi baa ku baxay waa banaankeenu aadnay waa israacnay waxba loo sheegay hal eray baa la fahamsiiyay waxa waqti dheer ku qaata hadii ay doonto inuu maartay qofku laakiin qof walba maalintii ilaahay u qoray buu maaragtay inay diintiisa qaadanaya yeenan marka inagu noqonin laftigeenu ay dad ma weela iska raaciyo dheelo iska raaca marka runtii hadalkan waan idinku dheereeyay waxaan jeclahay waan idinku waaninayaa marka aad wax dooranaysaan inaad ku doorataan qofkan principalkiisu ma yahay qof caqiida ahaan u dhisan ma yahay qof maadiyan u dhisan ma yahay qof dignity leh ma yahay qof mas'uuliyadaadii qaadi kara ma yahay bahashan inaan la adkaynin oo hoteelada faraha badan oo lagu tumanayo oo kharashaadka badan lagu bixinayo in iyadana wax laga bedelo marka su'aaleenu u gudbaynaa waxaan u maleynayaa bahashan inaan iska damin karno marka oo waxaan u maleynayaa miyaad okay aan su'aalaheena iyo sheekadeena caadiga ahayd u gudubna marka